Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan kusoo dhawow tutorialkan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa laba tool oo ka mid ah toolska aad iyo aad muhiimka u ah marka la joogo Photoshop isla markaana qofka userka isticmaalaya uu u baahan yahay in wax dheeriya ka ogaado aan ka soo qaadanay toolska tirada badan kuwa ugu muhiimsan ka mid ah marka waxaan ka hadli doonaa muuqaalkan waxa loo yaqaan burushka iyo eraserka ama masaxaada labada waxaan arki doonaa qaabka u shaqeeyaan iyo qaabka loo isticmaalo iyo maxaan ku raahdaa qaabka u size gareysan lahayd choice-kaaga meeshaad ka dooran lahayd nooca ay noqon karaan intaba markii aan joogno burushka waxaan u isticmaali karnaa inaan wax ku kalarayno inaan writing caadi handwriting oo kale u isticmaalo inaan wax ku sign gareyno hadaad saxiix u baahatid oo kale inaad Photoshop ku dhex samaysid si easy ah ugu samayn kartaa wax ku samayn kartaa oo kale inaad wax ku masking oo kale u isticmaashid sidoo kale waa u isticmaali kartaa marka saan u bilowno waxaan u baahnaynaa soo furno filekan ku bilaabi lahaynay filekan ugu talagalay tutorialka waxaan tagaynaa folderkeena ku jireen tutorialka documentska essential box doorana wax ka doorana using eraser and brushes qaabka loo isticmaalayo then markaan soo furno waxaa noo soo furmaya fileka noocaasa filekan marka noo soo furmo waa filekan ugu talagalay inaan ku fahanno qaabka loo isticmaalayo bulshada iyo qaabka loo isticmaalayo maxaa la yiraahdaa masaxaada haddaan ku bilowno burushka horta waxaad ka dooranaysaa toolska ku dhex jira waa toolka ka hooseeya spot healing-ka toolka hooseeya ee burushka qoran tahay click baa siinaysaa kan koreeya ka dooranaysaa burushka caadiga kaas weeye burushkii markaad hore kasoo dooratid waxaad isticmaalaysaa oo aad u baahan tahay inaad dooratid selection samaysid oo waayo Photoshop maadaama ay layers ku shaqeyso waana layerkaad u samayn lahayd burushka doorataa marka layer cusub aan samaysanayna layer hadaan isticmaalayno mid hore ku jaartid inaad wax ka bedeshido kala raysid ama maxaa wax dheeri ku dirtid waa inaad isticmaashaa layer cusub oo kale layer baa mid cusub baa samaysanaysaa midkii aad rabtid inaad wax ka bedeshid oo dooran kartaa new layer baa layerka markaan samayno dabcan burushka waa wadanaa oo marka sida caadiga burushka wuxuu isticmaalaa oo color ahaan ka dhigtaa colorka marka foreground-ka hadaan fiirino waa color background-keena way kasoo inaan bedelnaan rabno marka si aan u aragno wax aan samaynayno click tusaale ahaan orange-ga nooga dhig okay dabcan waa wadanaa burushkii waa shaqeynaya marka burushka inaan wato waxaan ku garan karaa inuu isaga hayladii saaran yahay mouse-kaygana aan ka arki karo halkaas calaamadaas ooda ah ama optionskiisa kale aan ka garan karo inaan halkan kasoo dooran karo inta right click iyo aan dooran karo maxaan ku raahdaa burushka noocaan rabo marka burushka noocaad u baahan tahay inaad ka dooratid waxaad ka dooran kartaa inaad right click siisid burushka markaad soo qaadatid inaad right click siisid kadib aad halkaad kala soo baxdid maxaan ku raahdaa burushkii noocii aad u baahnayd tusaale ahaan mid caynkan oo kale u baahdo oo saa u shaqeynaya size-kiisa weyn qaabka u shaqeynaya iyo haddaan u baahdo mid caadi ah oo burushkii sida burushka kale u shaqeynaya tusaale ahaan kan oo kaleba maxaan ku raahdaa saas isagana u dooran karaa tusaale ahaan haddaan doorto kan oo kale waa lamid isagana marka burushka aniga choice-kayga leh waxaan markaa u baahanay inaan samaysto tusaale ahaan baan dooran karaa tusaale ahaan hadda oo halka ku qoran ooda wax baan u isticmaali doonaa markaan choice-kayga aan ma ka ciyaarayaa kii aan markaa u baahanahay baan isticmaali karaa halkaa waa ka samayn karaa choice-ka waxaan kaloo ka samayn karaa halkaas inta soo furo burushka markuu ii dooran yahay halkaas aan furayaa buttonka waxa iga soo hoos baxaya meeshan optionska badan ka helaa toolska tirada badan aan kala soo bixi lahaa qaabkaas aan ka samayn haddii kale halkaan tagayaa burushka u baahanahay magaciisa markaa kala soo baxi karaa qaabkaas aan ka samayn karaa waxa kaloo sii samayn kartaa burushka halka kaaga dooranaa options tira badan baa halka heli kartaa kaasoo ku dhufanaysaa then wax kuu soo baxaya burushkii isagoo tira badan aad markaad wax ku dooran kartid waxa u baahan tahay inaad kala soo bixi kartid isla markaana aad samayn kartid burush nooc tira badan hadba waxaad u baahan tahay markaad kala soo bixi kartid qaabkaan ugu samayn kartaa burushka choice-kiisii qaabkaas loo samayn karaa saddexda meelood baa ka dooran kartaa halkaa furtid ama halkaa inaad furtid hadda options tira badan oo si baahan tahay inaad ka click siisid then halkaa ka dooratid wixii aad u baahnayd kuwa preset ay ku jiraan markaad eegtid bulsho nooc kasta leh haddaan kan oo kale doorto dabcan kaas ay shaqeynaya haddaan kan doorto dabcan isagana mid noocaas oo kale aan helaya haddaan kaas oo kale doorto isagana sidoo kale
qaabkaas marka bulushka u dooran kartaa haddaad u baahanto option tira badan oo kale halkaas ka soo raadsan kartaa. wax kale muhiim ah inuu qofka userka ah maxaa ku dhahay aad wax ka ogaatid waxay tahay bulushka markaan size-kiisa sameynayno tusaale ahaan bulushkii haddaan u baahanahay inaan size-kiisii ama cabirkiisii bedelo laba qaab baan u bedeli karaa. kow bulushka markaan soo qaato inaan right click siiyo oo halkaas size-kiisa ka weyneeyo waa mid oo saas u isticmaalo maxaa ku dhahay size-kii oo halkaa ka weyneysan karo isla markaana meesha ka yareyn karo oo qaabkaas aan u samayn karo halkaas size-ka ka weyneysan karaa. haddii aan shortcut ahaan u isticmaalayana waxaan ka weyneynayaa bracketyadayda computerka keyboardkiisa labada bracket ee waaweyn wareysyada haddaan kan midigta xiga hal mar taabto u weynaanaya haddaan ku celiyo sii weynaanaya haddaan ku celiyo sii weynaanaya kan bidixda haddaan taabtana wuu yaraanaya halkaasaan ka yareyn karaa halkaasna ku weynayn karaa labadaasaan shortcut ahaan uga isticmaali karaa size-kiisa ka set gareeyo oo halkaa aan markaas brushka size-kiisa halkaa ka samaysto. haddii aan u baahdo in aan marka size-ka samaysto qaabkaasaan u samaysanaya. haddaad si fiican u fiiriso marka documentigan halkaa yahay waxaa halkaa kaaga muuqda kalaro ama bulush meel lagu sameeyay. labada bulush ee halkaa ku qoran waa laba bulush oo kala duwan waa markii xagga loo saraacana size-ku sii yaraanaya markii xagga loo raacana wuu yaraanaya. waana laba bulush oo isku size laakiin waxay kala duwan yihiin hardness-ka. hardness-ka waxaa la dhahaa bulushkeena haddaan soo qaadano oo right click siino halkan kaaga muuqda meesha size-ka weyneyn lahaa horta halkaasaan ka arkaya laakiin hoos haddaa u degtid oo line-ka hoose waxaa halkaa ka arki kartaa meel kale oo laga yareyn option kale oo wax laga yareynay waxaa la yareynaya wuxuu noqonayaa hardness-ka ama koonaha bulushka geeskiisa bulushka borderkiisa ma khafiif baa ka dhigaysaa mise waa weyneynaysa. haddaan hardness-ka buuxiyo wuxuu noqonayaa bulush caadiyo dot caadi si full ah u shaqo wuxuu kalareyn karaa. haddaan hardness-ka yareeyo wuxuu noqonayaa bulush khafiif oo aad moodid in shucaac ku jiro. haddaan sii yareeyo aad buu sii khafiifaya. haddaan xoogaa dhexda geeyo xoogaa soo fiicnaanaya marka hardness-kan qaabkaas loo yareeyaa. labadan bulush haddaa u fiirsatid marka mid hardness-kiisu waa full oo wuxuu joogaa 100 size-kiisuna wuxuu leeyahay tusaale ahaan intaas oo kale size-kiisu intaas oo kale uu leeyahay ku aadi qaabkaas marka meelahaas size ku leeyahay. marka size-ka markuu kaa leeyahay hadduu hardness-kiisu full yahay qaabkaas u shaqeynaya kaliya markaan siiyo saas u shaqeynaya. kan haddaan sii yareeyo isagana waxaan isticmaalayaa bracketka bidixda ah haddaan yareeyo kan bulushkayga la ekaysiiyo isagana saa u sameeyo qaabkaas u shaqeynaya. kan haddaan sii yareeyo isagana misna saasaan u heli karaa. dhankan kale fiir marka size-kii haddaan kan ku soo celiyo kan sidiisa u la ekaysiiyo laakiin hardness-ka aan aad u yareeyo sidoo ka dhigo ama meelahaas kala geeyo si fiican u fiiri dhag markaan sii muxuu noqonayaa shucaac baa gelaya. haddaan sii yareeyo dhag markaan sii shucaac baa ku jira waa sii yaraanaya dhag markaan sii marka muhiimaddu waxay tahay inaad hardness-ka yareyn kartid size-kana yareyn kartid. waxaa u yareyn kartaa si guud oo halkan ka yareyn kartaa hardness-kaaga ama size-ka halkaas bulushka marka size-ka halkaas ka yareyn kartaa shortcut ahaana labada bracket baa ka yareyn kartaa hardness-kana isaga caadi waxaad right-ka intay siisun baa halkaas ka yareyn kartaa. marka bulushka si guud ahaaneed saas loo isticmaalaa. options tira badan haddaa u baahan tahay halkaa furaysaa meeshaas wax ka soo dooranaysaa noocaad rabtid. tusaale ahaan caleen baa lagu jirta caleenta halkaasaan ka fiirsananaa tusaale ahaan ay meesha caleen nooga fiiri waa nooc min bulush bay ka mid tahay caleentaasi waa watan tan kale soo qaad oo taas waa bulush weeye. marka bulushkaas caleenta wax noo suurtagelin in caleemo samayn karo oo bulush ahaan u samayn karo. haddaan blue ka dhigo sawirkii kalarkiisa kaasoo kale kiibu ekaanaya wax noqonaya blue. kanna waa bulush marka bulushku wuxuu isku siinayaa options tira badan aad samayn kartid maxaan ku raacday bulsho noocyo badan oo kala duwan leh oo kala qaab duwan isla markaana adiga aad choice-ka ka dooran kartid kii markaa ku habboon shaqadaada. qaabkaas marka bulushka ku dooran kartaa option-kaasna waa optionskiisa guud. haddaan tagno marka masaxaad wax loo yaqaan eraser-ka waa tool aad iyo aad muhiim u ah. tusaale ahaan masaxaadda waxaan u isticmaalnaa inaan wax ku tirtirno isla markaana wax ku googoyno oo object email inuu ku jira aan wax dheeri kaga saarno.
iyadu waxay burushka kala siman tahay meesha size ka dooranaysa size-kii sidii u dooranaysaa options-kii burushka bay leedahay oo intii option burushku lahaa oo dhammaystiran bay leedahay everything oo burushku lahaa masxaaduna waa leedahay hadaan rabo inaan masxaad soo qaato oo wax ku tiro halkan ka dooranaya then masxaad markaan doorto size-keeda halkaas ka yareysanaya option-kaygana kan u baahda kan oo kala dooran karaa hardness-kaas aan ka yareynaya size-kana halkaas ka yareynaya markaasaan caadi u tiraya tusaale ahaan haddaan qofkaan oo kale ku tiro isagaan dooranaya kadib baan waxaan u baahanahay kala tiraya qaabka wax u tirayso hadda shacaab ku jira hadda hardness-ka buuxiyo full ka dhigo kadib doorto objectigii marka aan wax ku tiro si full ay wax u tiraysa haddii aan hardness-ka yareeyana si khafiif ah wax u tiraysa qaabkaas u shaqeynaysa marka haddaan options kale inta ka badan u baahanahay maxaan sameeyaa meeshaan aan soo furayaa waxaan ka dooranayaa markaas option key marka aan iga quseeyay tusaale ahaan kan oo kale haddaan kaas oo kale ka doorto saas oo kale ay u shaqeynaysaa haddaan halka sii furo oo isna kuwa kale ka sii doorto halkaas ama nooc kale ah qaabkaas iyaduna ay wax u tiraysaa sidii dabcan hadduu optionska boqolkiiba 99 ama boqol waxay ka raacaysaa burushka noocaad rabtay baad la soo iyadii baa soo qaadanaysa kadib option kale dooranaysaa qaabkaas wax u tiraysaa marka masxaadana size-keeda si burushka loo yareeyaa shortcut ahaan u yareyn kartaa labada bracket ama waxa ka yareyn kartaa right click inta siisid baad caadi halkaad uga yareyn kartaa hardness-keedana sidii burushka baad u isticmaalaysaa waa kama burush laakiin burushka khad buu qoray iyaduna wax bay tiraysaa sidii burushka wax u qoray oo qaabkiisida iyaduna waxay wax u tiraysaa masxaad ahaan iyadoo masxaad u dhaqmaysaa eraser ahaan marka burushka iyo masxaadu qaabkaas uga shaqeeyaan waa labo tool oo related ah laakiin kala shaqo duwan isku eg laakiin kala shaqo duwan marka qaabkaas loo isticmaalo mid walba options-kaas uu leeyahay ay ka sameeyeen yihiin size-kana qaabkaas loo wada kordhiyaa halkaasna tool ahaan kaas ka soo dooran kartaa oo qaabkaas waxaad u isticmaali kartaa toolkoodii u soo dooratid intaasaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeen kaga hadlaynay waxa loo yaqaan masxaadda iyo burushka muuqaalka ku xiga waxaan ku arki doonaa waxa loo yaqaan shape toolka qaabka aad shape tiro badan ugu soo darsan lahayd toolkaaga qaabka aad shape tiro badan ugu soo darsan lahayd documentigaaga isla markaana aad kalaradooda iyo wixii aad markaa u baahan u set garaysan lahayd marka waana kulanta dambe oo xiiso leh